السلام عليكم ورحمة الله دمان أصحاب تقاليق أسود وهذا ماشي دعوانا صارنا وأدون ميديا جنرال كذا كوع سبتها ورطة سبسكرايب صار لايك نصار فيديو هنا ملفك جارسي ورطني ودمان أصحاب تقاليق كوع سب جنرال كان ورطة وحوا جنرال كان هذا نكور بحي جنرال كورطة وحوا هذا لنا نقف لقينا أبديت كنيوز قدام بي سيبا إتوبيان كان إذا بترضى يا أخلاق حمضة ودك كوهيان يفعل هذا نقول عن إبريان وذان ayaanu maartay mid ula fagurnaa oo fartay taaganba oo ka daba qornaa hada ka soo horjeedid dhamaan ficiladan qaabka daran ee Itoobiyaanka iyo waxay maartay wadanka Soomaaliya iyo ummadda Soomaalida ku hayaan horta YouTube-kaaga waa ku soo dhawow subscribe na saar wixii akhbaar wixii news ayaguna update-na waa maartay waa soo gudbinaa caawada marka waxa weeye waxaanu miiska noo saaran qodobo aad iyo aad xasaas u ah qodobadana waxaa kamid ah odayaal Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed oo odayaal Soomaaliyeed sheeganaya oo ka soo hadlay dhinacaas DDS dowladda deegaanka Soomaalida caasimadeeda ee magaalada Jigjiga oo sheegay markaas in Itoobiyaanka si cad u taageerayaan si toosa iyo si dadbanba inay u taageerayaan oo ay laf dhabar u noqon doonaan hatta hadii Itoobiya dagaal la gasho Soomaaliya in dagaalka ayagu ay laf dhabar noqon doonaan oo ay si xun uga soo horjeesan doonaan Soomaalida oo Allah qof kasta Soomaaliya ka soo jeeda ay u diidi doonaan deegaanamadooda taasoo ah mid aad iyo aad looga naxo oo fajac ku noqotay ummadda Soomaaliyeed niman odayaal oo cirro oo Soomaaliyeed inta shir qabteen oo meel isku yimaadeen waxaas ka hadlay runtii waxay noqotay wax aad u weyn oo aad u xun oo maartay Soomaalida maartay sawir xun gudbinaya taasna waa qodobka kale ee ayadana aan si falaqayn doonaan waxa waaye waa wasiirka maaliyadda aan dhigay wasiirka macdanta iyo shidaalka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamuud oo markaas su'aal laga weydiiyay waqtiga rasmiga ah ee ceelasha shidaalka Soomaaliya si toos ah loo qodi doono qodobkaasna waxa si raacsan ninkii Axmed Karaash oo asagana markaas ka soo horjeestay oo jawaab ka bixiyay jawaabtiisana waan gadaal ayaanu ka falaqayn doonaa iyo Turkiga oo sheegay markaas in ay dowladda Soomaaliya cod u soo gudbsadeen in ay rabaan gantaaladooda plastic inay rabaan inay ku baraaweystaan oo Soomaaliya keenaan dalbadeen inay saldhig kale oo labaad ay ka furtaan ayagoo hor saldhigii Turksom muqdisho ku lahaa oo ah saldhigga ugu weyn ee ku leeyihiin meel ka baxsan wadankooda marka ayadana waan falaqayn doonaa iyo Xamse Cabdi Barre oo markaas asagana u socda rabo inuu booqdo dhankaas iyo Baydhabo intaas qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu markaas mid u kor istaagi doonaa aan ku bilowna qodobkan ugu horeeya waayahay qodobkan ugu horeeya oo ah odayaashaas Soomaaliyeed damiirka inta la soo hortaagay Soomaali badan intay meel shir ku qabteen oo meel isku tageen la soo istaagay maalin cad Soomaaliya waligeedna ma naqaano nama sheego karto mana sheeganano Itoobiya baan nahnay war intaas haba sheegtaan oo waxay rabaan hadhahan oo Itoobiyaanimadooda ku faanaan laakiin midda ugu daran ah waxay tahay odayaasha saas u hadlaya ee maaragtay Itoobiyaanka aad u difaacaya ee dhahay anaga Itoobiyaan baan nahnay dowladda Soomaaliya waxa waaye waa dhammaan Soomaalida maaragtay waddankeena waa u diidanaa sidan baan yeelanaa xagee ka dhacday iyo barraqdaaysa waxa ay tirinayaan cid u qabanaysa ma laakiin qodobka ugu daran ee ugu xun ayaa waxay tahay in odayaashaas dhahay Soomaaliya qaarkood xataa ay dhahayeen wiligeena ma arag Soomaaliya isma naqaan dhahayeen in qaarkood maalinkii maanta ay ka soo degeen magaalada Baydhabo ayagoo waliba lacag sida kana soo qaaday Itoobiya Addis Ababa ka soo qaaday waa odayaashan nimanka odayaasha sheeganaya cid Ilaahay abuurtay ku matalaan ma jirto wax Ilaahay abuurtay shaqada u dirsaday malaha kaliya waa daba dhaqleelayaal macnaha waxa Soomaaliya ka nansan la adahay ee loo soo adeegsanayo odayaashaas kale maanta al hore dhudhuma jireen laakiin maanta cad bay u soo istaageen waa macnaha dadku waa sirdoonka saxda ah ee Itoobiyaanku ay leedahay hadda nimankaas oo DDS u dhashay bal Baydhabo maxaa ka soo galay waaba kuwii lahaa Baydhabo iyo Soomaaliya isma naqaano hal banaan ba ka taagana waa kuwii lahaa hadana maxaa Baydhabo keenay lacag bay wadaan waxay ku fardhinayaan dadkaas deegaankaas waxayna abaabulayaan ciidamo maarta beeladyo waxayna rabaan inay dagaal toos ah la galaan oo dowladda iyo federaalka inay mar walba cuuriyamiyaan lugooyo toos ah waxa ay dowladda Itoobiya dhaqdhaqaaqadan iyo baradan ay bilowday markii Soomaaliya ay heshiis la gashay dhankeeda Masar dowladda Soomaaliya way la gali kartaa wadamada rabto Itoobiya haday rabto way dhigi kartaa iga bax haday rabto go'aankeeda ku xiran tahay Itoobiyaanku intaas ku diidaya kuma rabo xuriyad kuma rabo ma rabo inaad meel fiican gaartid dawlad inaad yeelato ma rabo ciidan inaad yeelato ma rabo urwada xataa inaad dhisto ma rabo mar walba lugooyadaada mar kastana aanu sheeganaya wuxuu leeyahay dhiig baa idin shumnay sidan baa idin shumnay intaas aanan sheeganay wax Ilaahay abuurtay Soomaaliya u qabteen mala in burburkiisa iyo qabyaalad iyo wax daran ka shaqeeyaan ma ogiye Itoobiya horta wadankan naf uma hayaan dhishiwa ana indhahay taas ha u bixina wallahi billahi runta idin sheegaya nimankan Itoobiyaankan kabta xirta in la xirta ma ogiye aqli kala ma laha aniga maalinka maanta waxa waaye dagaal hadii noqotana jiid horan galaya waa fahanteen Soomaaliya marka Itoobiyaanka dhalinyarta Soomaaliya maskaxdiyan ku cun maanta alxamdulillah waa wadan adduun waxa joognaa maanta la hormaray
2024 waa la marayaa nin kasta mobile buu wataa wax walba update kasta iyo wax walba indhaha waa lagu wada hayaa Ethiopia wuxuu sameynayo war xataa sida qorraxda sacbada sida qorraxda kala sacbada looma qari karo maanta Ethiopia waa soo wada baxay dhar ku soo dhigtay okay qodobkan xiga wasiirka laga weydiiyay waqtiga saxda ah rasmiga la qodayo ceelasha shidaalka ee Soomaaliya sida rasmiga loo hawlgalayo horta faahfaahin saas u dheer muu bixin laakiin wuxuu sheegay markaas in Turkigu ay markaas heshiis la galeen oo Turkigu ay qodi doonaan markabka u horeeyana uu imaan doono bisha 10aad ee October markabka u horeeya markabka labaadna bisha ku xigta kadibna ugu dambeyn adigu marka hadii aad u daahdo bisha 3aad ama bisha 4aad ee 2025 in qodista la bilaawi doono war aad u wanaagsan waaye balse laakiin waa sugeynaa kolba waxaan Soomaalidan afka kala dhaxdaa sidoo kale Turkiga ayaa maartay dawladda Soomaaliya cod u soo jeestay oo maartay sheegeen inay rabaan inay ayagana saldhig kale oo cirifka Soomaaliya badweynta Hindiya ay ka sameystaan saldhig kale oo ay markaas gantaalada plastic ay ridada dheer keensadaan si ay markaas u tijaabiyaan meeshaas ay tahay in istaraatiiji aad u wanaagsan tahay balse laakiin waxa la iska rabaa dawladda Soomaaliya ma ka faa'iideysan doontaa dawladda Soomaaliya hadii aqli leedahay oo maskax fiican leedahay way ka faa'iideysan kartaa kulba wax badan way ugu bedeli kartaa deerto dhulka way kireey kartaa marka aan dawladda Soomaaliya baaqa maanta u soo jeedinaa waxay tahay in ay maaragtay dawladdaas maaragtay intaas waa horta dhul muhiim ah lama helo qof Ilaahay abuurto ku sii kara wadan iska kaasinaya mise sidoo kale malaha dawladda Soomaaliya waa inay u yaraan gantaaladaas amse wax adiga dadka Soomaaliyeed ku farxaan wayna uga bedeshaan okay ninkii Axmed Karaash madaxweyne ku-xigeenkiisa hore ee Puntland Axmed Karaash ayaa mar uu meel fagaara ka hadlay sheegay meel qoraalka bartiisa Twitter ku soo qoray meel qoraal Facebook ku soo qoray in Soomaaliya iyo Turkiga oo bilaaway markaas qodista shidaalka dhulka in markaas ugu baaqay inaysan ceelka holhol ee Nugaal ku yaala inaysan markaas u soo dhawaanin dalkaas iyo Puntland iyo Khaatamo ceelal badan oo shidaal ku yaala wuxuu yiri meeshaas waqtigaas kaga soo dhaminina ilaa ay tahay in ay si sharci ah u soo maraan wana ninkan waa iska siyaasi kulba hadalkiisa uma sii baxayno kulba wax iska daldalay laakiin Soomaaliya anaga waxa ugu baaqanaa meel kastaba inay qodaan meel kasta Soomaaliya ka tirsan in la qodo shidaalka la soo bixiyo macaanta la soo bixiyo waxaasna wax loo qabanaya maaha sharci buu yiri wax xirabtaha noqoto tanaaba sharciya mar hadii dawladdu ay qalin ku dugto sharci waa anu waxa leeyahay Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay qodaan ninkii Xamse Cabdi Barre isagana markaas loo wadaa inuu markaas ka dago Baydhabo soo markaas shir uu la qaato lafta gareen oo ah ninka ugu weyn daba dhilfka ugu weyn ee Etoobiyaanka horta ninkaas maadaama uu bariyahan Soomaaliya oo maartay hadal kulkul ku soo maartay ku xambaareeyo soo meelaha ka soo jijiidii Xamse Cabdi Barre loo diray waxa la yiri warniyo ninka naga soo xaliniyo marka anigu waxa leeyahay Xamse Cabdi Barre ninkaas waxa waaye waa fogaaday qabashu leeyahay soo qabaan leeyahay war YouTube kan hada ku cusubtiin channel kan waxa waaye subscribe saar like saar meel figna naga gaarsiiya waa nagu dhagantiin warniyo meeshan subscribe aad u hooseeya waxa waaye meel fiican naga gaarsiiya billahi alayk Soomaaliya haduu dhig Soomaaliyeed kugu jiro meel fiican naga gaarsiiya waana salaamantiin aad baan u mahadsantiin